wadaad mu'adina ayaa gabadh ayuu jeclaaday waa qiso macquulana gabadha aabaheed baa markaa loo doono loo tago lagu yidhi gabadhaada nasiib markaasuu gabadha ninka hadda doonaysaan waayo markaasaa la yidhi waa ninka hebel hebel la yidhaah markaasuu muxuu ka shaqeeyaa markaasaa lagu yidhi masaajidku ka addimaa wuxuu yidhi gabadheeda mu'adin ma siinayo gabadhuna markaa ninka runtii waa nin khayr ay ku ogto way iska doonayso way jeclayd ninkuna gabadha uu jeclaa ninkii baa loo yimid oo la yidhi warniyo waa odaygii gabadha uu kuu diiday sababna wuxuu ka dhigay cillad wuxuu odaygu ka dhigay war ninku waa mu'adin mu'adiniintana waa la ogyaho qol yaro masjidka ku yaalla ayay degan yihiin gabadheeda ma qolkaabuu rabaa inuu la taga buu yidhi markaasuu yidhi bal waayahay iska daayo buu yidhi gabadhii buu yidhi naade waayahay bal adna iska sabir anna waa sabriyo ilaahay aan barino sanad kadib ayaa ninkii uu fikiray markaa qorshaa ilaahay qalbigiisa ku sharxay ilaa shay markaad jeclaato ee lagaa hor joogsado hadhi maysida xeelad baad raadinaysaa shayga aad ku gaadhid markaasuu odayaashiiba u yeedho wuxuu yidhi war ninkii odayga ahaa iigu noqdo oo gabadhii maaragtaane ha la ii doono markaasaa lagu yidhi war waagii dhaweyd baan meesha ku lugo'nay hana lugoyne adeer masaajidkaaga ka addimo iska fadhi bay ku yidhahdeen markaasuu yidhi maya ku noqda waxaad iga gaadhsiisaan odayga kiin weydiin doonaaye ku dhahada ninku waa ninkii laakiin ninkii shaqo fiican buu helay iminka shaquu qabtay markaasay ku yidhahdeen war shaqada aad qabatay maxay tahay waa adigan aadaankii uun waday weli addimayeen kugu ognahee shaqadaad qabatay dee aan odayga u sheegnaa bal noo sheeg waxaad ku tidhaahdaan ninkii mu'adinka aad ku ogeydad gabadha u diiday aqalka boqorka qasrigiisa qasriga boqorka ninkii shaqo laga siiyo xafiis baa loo dhiibo boqorku la shaqeeyaa oo yaabay marka odayaashii waxay yaabeen jawaabtan aanayni siin waxaad ku tidhaahdaan welibana waxaynu odhan doonaa qaybtee baa loo dhiibay waa shaqo fiicane waxaad ku tidhaahdaan waxaa loo dhiibay shacabka iyo boqorka ayuu u kala dhaxeeyaayo shacabka ayuu boqorka ku soo xidhaa waxa uu boqorku doonaya buu shacabkana u sheegaa intaa igu sheegay buu yidhi waa loo yimid odaygiyo waxaa lagu yidhi ninkii shaquu helay markaas shaqadu helay boqorka qasriga boqorku ninkii shaqo ka qabtay